الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, warasaabka gobolka maayirka caasimadda, xubnaha golaha deegaanka, mudanta iyo marti-sharafta kale halka fadhida dhammaantiinba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. marka koowaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu maanta u joogno munaasibadan aadka iyo aadka muhiimka u ah ee loo dhisayo xarun loogu adeego caasimadda Somaliland ee Hargeysa. waxaa kaloo jecelahay inaan u mahad celiyo shirkadda Geosol iyo maamulka iyo dowladda hoose iyo golaha deegaankaba. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa imika waxaan haynaa waa hilaal amba waa fiisha inuu inoo rumeeyo oo aynu mara ka noqono hawshaas oo qabsoontay. waxaan kaloo aan jecelahay inaan u mahad celiyo aragtida togan ee golaha deegaanka in la ilaaliyo dhismaha historiga ah ee aynu leenahay ee la dhisay 1953. waxaan joogaa kolley wasaaraddii howlaha guud waynu ilaalinaa goobaha sidaa taariikhiga u ah. imika Hargeysa ilaa iyo 3 meelood oo ka mid ah oo la dhisay 1958 oo ka mid tahay xarunta gaadiidka oo la doonayay in la dumiyo, waanu ka ilaalinay in la dumiyo, waxaanu sameynay dhismo cusub. waxaa kaloo jecelahay inaan xarunta ay wasaaradda howlaha guud ku shaqaysay lafteedana sidaa loo ilaaliyo maadaama ay tahay raadkii iyo taariikhdii. waxaan xusi karaa wasaaradda howlaha guud waa xaruntii dowladdii ugu horreysay dowladda Somaliland yeelato 1960gii. 6 cisho ee uu ra'iisul wasaaraha ahaa Allah yarxamahe Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo xafiis ku fadhiistay. markaa waxay noogu mudan tahay inaan taariikhda ilaalino. waxaa kaloo maanta nasiib wanaag ah aan jecelahay shirkadda ku guulaysatay in halkan aan ugu bayaamiyo wax kastoo dhisayno oo dhismaha inta badan xagga quality-giisu aad buu hooseeyey. gurigaa la dhisay 1958 iyo dhismahii la dhisay 2018 marka la eego xagga quality-googa waxa fiican gurigaa la dhisay 1958. marka dad ahaan iyo dal ahaanba waxaan u baahnayn inaynu helno waxaynu ku kantaroolno. hadda waxaan rajaynayo oo 21 bisha waxaynu usoo mandhigi doonaa ummadda Somaliland guud ahaan iyo gaar ahaan caasimadda Hargeysa inaanu diyaarino markii koowaad building code regulationkii oo insha allahu lagu dabaqi doono dhammaan dhismayaasha. sababtaa qof kasta dhismaha wuxuu u dhisay siduu isagu jecel yahay, ma jirin habraac loo maro iyo shay kasta oo la doonayo. marka dhismaha laga hadlayo reeshiyada loo isticmaalayay amba tarangaska la doonayay amba birta la doonayo in noocay noqonayso amba sibirka la isticmaalaya noocuu noqonayo. insha allahu waxaynu daahfuri doonaa jecelahayna inay noqoto dhismahan inuu noqdo dhismaha koowaad ee lagu dabaqo building code regulationka aynu diyaarinay. waxaa kaloo aad iyo aad u soo dhaweynayaa aragtida ah in la isticmaalo waxaa loo yaqaano triple-B-ga amba public private partnership-ka. wadamada inta ugu badan horumarka sameeyey xagga kaabayaasha dhaqaalaha sida Germany iyo Holland iyo Turkey intuba waxay isticmaalaan nidaamka triple-B-ga amba wada lahaanshaha dowladda iyo dadka private-ka. markaa waxaan jecelahay arrinkaasi inuu suurto galo. waxaan jecelahay in ku hambaliyeeyo wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha oon ka qayb galay munaasibaddii ugu horreysay ee lagu soo bandhigayay siyaasadda guud ee wada lahaanshiyaha dadka gaarka ah iyo dowladda. waxaan jira ilaa iyo 8 nooc oo loo sameeyo triple-B-ga. waxaa ka mid ah tan imikaynu kula jirno DB-wel oo ah BOT iyo BLT iyo BO iyo TOR. 3-4 nooc inta badan ugu badan oo caalamka isticmaalaan. markaa waxaan dareensanahay inuu heshiiskiinu ku salaysan yahay BOT oo ah inaad imika dhistaan ood hagaajisaan dhowtoolana dowladda hoose ku wareejisaan. waxaan aad iyo aad u hambaliyeynayaa aragtidaas in loo helo shuruuc iyo xeerar. dalkuna horumar ma samayn karo haddaanay dowladdu iyo aanay dadka private-ka wax wada yeelanin oo fursadahaas shaqo ama jaanis ee jirana aan laga faa'iidaysanin. waxaad og tihiin waddooyinka ugu waaweyn caalamka waa tool. bariisyo badan baa jira tool oo lacag laga qaadayo
muddo ka bacdina noqonaya waxay dowladdu yeelato markaa lacagtooda ka soo baxdo. waxaan ku soo gebagabeynayaa ilaahay siduu sheegay rasuulkuna inoo sheegay amniga iyo iimaanka wax la horeysiiyey waxa weeyaan waa amniga. maanta waxaan halkan ku fadhinaa aan ku shaqaynayna waa amni. haddii amni la waayo masaajidna la tegi maayo, dhismana la dhisi maayo. waxaynu nahay ummad qaangaadha. waxaan rajaynayaa waxyaabaha yarana dhacayana in si xigmad leh loo maamulo. dalkani iyo dadkiisani way soo jireen, wayna jiri doonaan. uma baahnin inaynu waxyaaba yaran oo secondariya aynu maaragtay nolosheena iyo mustaqbalkeena ubadkeena aynu ku xumayno. marka runtii waxaan jecelahay si ay horumarkaas u waarana in sida dadka macquulka ah ama dadka xilkaska ah inay ka shaqeeyaan wixii wanaaga ummadda dhexdooda. waanad mahadsantihiin.